waxaan rabaa inaan muujiyo inanta Soomaaliyeed waxay sharaf ku leedahay waxa weeyaan misaal baad tahay adigu markaad qof Soomaaliyeed tahay misaal tusaale tahay example baad tahay markaan ku leeyahay example baad tahay waxa weeyaan kow qof muslimaad tahay Soomaali hada qof muslimaad tahay maxaa dhaxashay waxaad dhaxashay akhlaaqdii nabiga kaleey salaatu wasalaam ee dhaxashay marka waxaad tahay misaal adduunyada oo dhan ku dayato baad tahay kowr adiga hadii aad meeshii adoo lagu daydaa qeyrka ku dayo adigoo lagu daydaa oo misaal ah tusaale example hada qeyrka ku daytay kowr marka waa dhibaato weyn waa hankiiba ku jabay hankaagiiba jabay marka waad isdhiibtay waad isweyday waxa tahay baadan garanaynin marka waxa tahay garan weydina waxa fudud in lagu duufsado tusaale way fududahay in uu inan yar intuu ku kaxeeyo oo yiraahdo timaha sida u jaro oo ku yiraahdo dad Mareykan oo Mareykanka joogay baa nooca ahaa dadka adigu ma tihid haduu ku yiraahdo yaani uu ku duufsan karaa dansi buu ku bari karaa laakiin adigu way kugu adag tahay inaan ajaanib aad batir dhaanto soo kugu adka way kugu adag tahay inaad qof ajaanib ta soo kaxaysatay dhaantaan leena dhaantada baro marka adigiiba tusaale ahaa laakiin waad isbedeshay adigiiba waxa noqotay qof dadku aad ku daytay tusaalaan labis baan leenahay dhaqan baan leenahay wax baan leenahay wax leen ugu gartaan leenahay waxa soo dhan inta dadka bari lahayd adigii hadii lagu duufsado dadkii ay wax ku bartaan wax kugu shubtaan ama maskaxdaadu ay noqon maqal lagu leeyahay mahad bayaan musbaariga lagu furan mafaatiix adiga maskaxdaada la furay wax doona lagu shubanaya marka waa isweyday dadku waa geeyaan cabdiyo waxaan aan alifo waxaan siri gabadh halkan wiil halkan ku koray iyo gabadh reer miyiga ayaa shukaansaday ina ku markaa af Soomaaliya ma yaqaan gabadh waa gabadh reer miyiga oo dhaqan bay wadataa af Soomaaliya adkaaba lagu hadlayaa ma garanaysaa su'aalihi adkaa waxa la soo dhigayaa hawraaro waxa la soo dhigayaa ma garanaysaa mahmaahayo sarbeebo ayaa waxba la isgelinayaa marka waxa saawo mala awaalan oo ina Soomaaliyeed oo wadankii joogta oo dhaqankii xiran oo dharkii xiran iyo inaan halka ka tagay oo ay ku duuban tahay waxyaabaha noocaas oo kala oo haystay inuu wadan yahay tusaale Holland baan idin ninkani ka tagay Holland baad ka joogtaa adigu meesha aad joogtid uu ninkani ka tagay marka saan u matalayo marka sheekadii dhaxmartay baan ayaa rabaa inaan idin mariyo wuxuu yiri hanad wiil oo bari ku habaabay dibadda Holland Yurub ku koray baa dhulkii hooyo loo diray balse heybta uu yahay halka uu ka yimid shalay iyo hidihiisa loo baro hawd looga sii qaad hawd waa meel hawd looga sii qaad horma geel la raacsi lagu yiri hor joogo hal irmaana lagu yiri haruubkaaga kaga dhare haruub baa loo dhibo hasha lagu maala haruubka hasha maal haruubkaaga kaga dhare hawshood ka daba orad haraad iyo la darisile hashi maali kari waa markuu hoos istaagaba haraabti bay ku lagadaa leerma yaqaan saasha loo maalo marka hashaadana qoys lagu maalo laad ku dhufan salaadkaas marka waxa la yiraahdaa haraati galab hoogasha dayreed hoosto barwaaqa mar uu geed har weynaa hoos jiifa kaligi hees iyo dhawaaq maqal soo geed hoos jiifa ayuu hees iyo dhawaaq maqal hibashu la sarakacay eeg hareeraha misayna muuqaal loo hooyinaysa maqal oo heesaysa weeyaan waa gabar Soomaaliyeed isla helay indhaha kow xishood baa hagaayay hoos dhugateynantii waa nin aan higaad iyo afku hooyo baranina hi girl buu yiri how do you do gabadhaas ma taqaan afro hi girl buu yiri iyo how do you do waxay tiri halka joog hadal aan fahmana sheeg magacaygu waa hanad buu yiri hibaaqaygu weeye haybtaada ii sheeg bay tiri wuxuu yiri hormada arkaysiya halowliga geela ka hor jooga baan hay reer Hollandna waan hay ayuu yiri hibaaqay haye garana bay tiri geela hor joogtay Hollandtani maxay tahay anu geela gartay boo reer miyi baan ahay Hollandtani maxay tahay wuxuu yiri hibaaqay halkii aan ku ababay xaraqaad ku gaariyo waa hooyga raaxada weey hanado waxay tiri hore taawamaan maqal waxa la igu heesaa nin waliba halkiisii ciidiisa hooyuu hayba sharaf ku leeyahay hayeeshee halka maqan weeye hor u soco anu Hollandtani raaxadana ka sheegayso garanay miyigayga yaran joogay argayga baa oo aqaana wax hodan ay yihiin ma garanaysaa hore u socday sheekada ka gud wuxuu yiri hibaaqay hanfi baa dhacay heeriyada ku saaran maxaa uu kugu raray dharka waa weyn xiran tahay waa samarooda qorraxba jirtay ma iska samaraysid dharka marka hiday xiran tahay gabadhu wuxuu yiri hibaaqay hanfi baa dhacay heeriyada ku saaran maxaa uu kugu raray
hanado waxay tiri hidayga weeyaan wuxuu yiri hibaaqay huur weeye tuur wad ku gubanaysaa hawl maaha ku taale hadalkaaga fuuyaha ku celinayay tiri wuxuu yiri hibaaqay hubaal badawad baa tahay hawo been ku noolo aan horumar doonayn sida hawlgab oday iyo habar dhaxani haysaa huwantaay go weyn oo iska heeriyo culus tahay adduunyada hablaha kacay waa high class oo way ka horeeyaan raggu kama helaan sidan haddii aanad hip hop hibaaq dheeli karin raab dharkan haaluf kaa bixin timahana huruud marin hawadana u sii daynyaa kuwa hawoon oo kugu haysan gurwaanbul marka inantu way ismuujinaysaa dhaqankeeday muujinaysaa soomaalinimadeeday muujinaysaa inankii markaa jawaab siinaysaa waxay tidhi halhaysiyo mahmaa horaa tidhi inayo hubsiimada hal ayaa la siistaa inuu hadal xun kaa dhacana waa laga haboon yahay nin habeen gudaayo iyo hawo maran ayaa tahay hamigii hankaygaa heegadaa isaaro halyey aabbahay iyo hooyaday macaan baa igu habay asluubo hidda igu barbaarsho halarayga igu dhalay adna haybadaydaa kula howl yaraatee qaar kaa horreeyaa igu soo hungoobo hanaqaad gayaana araggayga haybsho haasaawahaygaa loo kala horeeyaa hanaankayga wacan baa lagu soo hirtaayo loo soo hiloobaabay gabadhan aad saa leedahay waxaygaanoo xidhan ayaa qaar kaa horreeyaa igu soo hungoobo hanaqaad gayaana araggayga haybsho haasaawahaygaa loo kala horeeyaa hanaankayga wacan baa lagu soo hirtaayo loo soo hiloobaa sidaan ahay hablaha qaar hilbahayga maan gadan hooyaday dharkeedii kuma sheega heeriyo hadba shayga soo baxa ma huwada ma heensado ma hilmaamin diintee weli waan hagoognahay sidaan ahay hablaha qaar isku haysta reer yurub hilmadayda dhalashii afka laygu soo habay haadaan intaan dhigo midaan hooyayba barin ku hadaaqi maayo hodan luuqadeedii hidahayga kama tegin bay tiri habeen qura kamaan dhixin hoygaan ku ababo waxaan ahay mid hooda leh haye baan u badiyaa waalidkii soo habay iyaguna hubaashii howraarsan iyo duco iyo hadalsan mooya habaar weli imay odhan bay tiri qurux iyo hibiya sharaf hablahan la qaybsaday indhihii i halacsada hal mar igu ildoogsada hurdo way istaayaan waxaan ahay haldoor iyo hogashoo da-aysiyo hilaac iyo iftiin baxay nin halyeeya mooye mid sidaada heer loo hoolhoolan madaxoo hanti iyo lahayn geel ima heli karaayo hadal xumay soo barabay haasaawo baradoo horta bara hanaankii habka loo ciyaar gudo adoon heesin weligaa haysmoodin hoobale heelada bal soo baro adigoon higaad baran hadalyaanu kaa dhicin haadaan dalluun iyo hog abeesaha u gelin hablahana ha ceebayn waa hooyadaadii ku habtiyo walaasha hilba kuugu yaaliyo mid hankaagu raaco hoy kula wadaagto hiba kuugu corataba gabadhaa iyo gabdhaha iminka jooga maxaa u dhexeeya markaa muxuu yahay farqaas haye kuwana markaa waxaan ku dhiirigelinaynaa inay khamaarka inuu dhaqanya markaa waxaan leenahay muhiimaddu waxay tahay dhaqanku waa astaantaada dhaqanku waa haybadaada dhaqanku waa sharaftaada dhaqanku waa waxa aad wax ku tahay haddii aadan dhaqan lahayna waxaa ma tihid ummadaan dhaqan lahayn oo dhaqankeeda aan horumarina waxba maaragtay adduunyada kuma soo kordhiso marka waxaan u baahannahay inaan kuwan aan la joogna martida u nahayna aynu barno dhaqankeena